waxaa la yiri mushaarka dalka Qatar aad buu u sareeyaa arinta maxaa ka jira waxaad ii sheegtaa fiisaha Qatar waa imisa ugu dambeyn sidee lagu xareysan karaa askarnimada Qatar Bashka Bashir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قول لكينا بشكا بشير أيضا له لوسو دوادو يوتيوب channel كيغا مركلة إيو فيديو سؤالنا لسوبي دي أياربنا ماتنا انك جوابنا سيدو كلا هدياتا هورت مركي كوريس أنا صوبو قوتو يوتيوب channel كينا فضلا هايلو إنا سسكرايب باع كسيس الفيديو لا قري أنا وباسنتا هاي يا لايك تاد وينو مهم هذه قد داونا يا so horto su'aalaha wallahi su'aalo qaar funny hadana Soomaaliya su'aal ugu jawaaba marka waxaan qoraysaa qosol iyo wax badan arkaysa marka adiga wixii su'aalaha jeceshahay marka mar walba video adigana ku soo qari kartaa oo ku saabsan dalka Qatar ama jimicsiga ama xarakada saddexdaas halkan way soo weydiin kartaa waana kaaga soo jawaabi doonaa marka aan gudugada su'aasheeda koowaad wuxuu yiri assalaamu calaykum walaal magacaygu waa Khalid وعليكم السلام Khalid waxaa la yiri mushaarka dalka Qatar aad buu u sareeyaa arinta maxaa ka jira صح shan horto been maaha mushaarka dalka Qatar aad ayuu u sareeyaa marka horto lacag badan lagu shaqeeyaa sidoo kale dalka Qatar waxay aad ugu fiican tahay Yurubta hadaa shaqaysid canshuura ka go'aysama arabta anaga canshuur ma ka go'aysa mushaarkaaga wax walba shaqaysid imkaankaaga haduu $10,000 yahay $10,000 adoo riyaal $1 laga goonin aad helaysaa laakiin caalamka kale oo Yurubtaan iyo hadii canshuur horta ibir loogu dhigay shaaha gadane nus oo xasaaran canshuur inkay canshuura saaran marka laakiin Qatar canshuur waxa la dhahaa doonka ma jirto not Qatar I think arabtoo dhan waa wax canshuur lama ka fikiraysid waayo adigana canshuur baad ku baaqato lacagtaada mastly way ku badanaysaa Soomaa marka mushaarka badan halkaas oo ka yimaaday sidoo kalena lacag badan lagu shaqeeyaa ya really ma sha Allah lacag badan lagu shaqeeyaa sidoo kale hadii ay jeclaan lahayd shaqo walba mushaarka lagu bixiyo ayadana video kale ay idinkaga soo sameyn doonaa hadii ay dadka jecel yihiin laakiin waa sax ninkan soo sheegay Qatar mushaar badan oo fiican laga qaataa horumarna waad ka sameyn kartaa ya laakiin waa hadii ku qoran tahay aad dadaal imaadid يعني kuma jilcina mar walba video ku sheega it depends on you qof walba asiga ku xiran tahay in nasiibkiisa marka su'aashii labaad saaxiib waxa la ii sheegay in fiisooyinka aan la bixinaynin maadaama koobka adduunka uu ka dhacayo sanadkan 2022 ee arinkaas maxaa ka jira mise waa qaali fiisaha teeda kale waxaad ii sheegtaa fiisaha Qatar waa imisa ugu dambeyn commentiga iigu reeb asxaabta horta yarkaan soo sheegay horta wuxuu yiri fi marna wuxuu dhahay waa su'aal isku wada jirto wada fiisaha ma la bixinayo maadaama lagu qabanayo hadii lagu qabanayo any wadan meeshan fiisa loo diidaa ma jirto sa hor kugu sheega process ba maraysaa wali baasaboorada hadii loo fiiriyo Ethiopia iyo Kenya way ka sii raqiisan yihiin baasaboorka Soomaaliya anaga wadankeena Soomaali baasaboorkiisa marka hadii noqoto fiisa yara qaali ah hadii loo fiiriyo yani kuwana qaali marka kuleeyna oo qaali oo weyn ma aha waa $2,000 way fududahay aniga intaas waa ay afka toos kama dhihi kari sababtoo ah waxaan ani fiisa anima soo saaro waxay ku xiran tahay hadba qofka fiisaas haay ani laakiin wixii information ba idin soo gudbin kara wixii fiisa iyo qiimaha saa hore idinku sheegay haddana waa idinku celinaa waxaad kala xiriireysaan shirkadaha tikidada jara ee fiisooyinka soo saara ayaad kala xiriiri kartaa agency-yaasha tag wixii fiisa information oo Qatar ayaga wareysa laakiin aniga wixii waxaan jawaab idinka siin karaa kaliya information dheer oo saxda ah wixii leendhaa muddo idinkaga jira يعني دي افتيمنا waa taas fiisaha marka waa la ogol yahay wax xiran la diidaa ma jirto inta corona jira mar la yara xiray haddana waa la furay su'aasha kale sidee lagu xareysan karaa askarnimada Qatar askarnimada Qatar
horta waxaad ku xariisan kartaa mid way jirtay horta oo xilli hore way jirtay oo dowladda Soomaaliya oo dad toos loogu keenayay ilaa ay wadankii jiray laakiin hadda marka hadda xaggan joogtid adiga toos u tagay tagay meesha ay xarunay leeyihiin xaruntooda tagay CV-gaaga dugsiga sare oo laga rabaa dugsi sare wadata shahaadada dugsiga sare la tagaysa خلاص meeshaan askartana laakiin shaqada askarnimada xaggan aad u fududahay waana shaqooyinka loogu jecel yahay qadar haday noqoto يعني aad dadka haday noqoto jaamacada Arab oo dadka Soomaalida iyo dadka oo jaamacada Arab ku jira aad u jecelin waa la qaataa shaqadaas xitaa dadka salama qor waa dadka muslimiinta Soomaali horta waa dadka ugu sasareeyo oo aadka loo jecel yahay la qaato oo sidoo kale adii Suudaanta sidoo kale Marookaanka Tunisia adii wadamadaas oo Carabta oo muslimiinta oo jaamacada Arab ku jira ayaa la qaataa marka askarnimadu muhiim waxaad ka balay gareyn kartaa inaad intii joogtid oo imaadid waay ama hadii kale oo adoo xagga jooga hadda xiliga seelta ma jirta in dowladda Soomaaliya ay xagga ka soo qaato oo ayaga oo loo soo gudbiyo oo la soo siiyo maana laakiin mar walba askarnimada waxaad ku qaadan kartaa inaad dalka qadar ay joogtid soo ku dheeraaday qofka kaan wuxuu yiri assalaamu calaykum bara waxaan ahay taageerahaaga waxaan rabaa inaad iga jawaabtid fursadda lagu imaan karo World Cup visit 1 month after 1 month waan soo laabanayaa bilii sideen ku helaa from Djibouti يعني marka horta mu alaykum salaam brother Allah ku taageero saadiga taageertay adigana Allah ku taageero midda kale qadar hadii aad passport Djibouti haysatid ku fududahay waad iman kartaa World Cup sheegtay adoon World Cup caadi oo ma kartaa deganaansho ka heli kartaa sharciye ku siinayaan oo ku degnaatid illa inta sana jeceshahay marka horta imaatinka fiisaha wili yani waxay ku xiran tahay ciyaaraha inkastoo hadda wili dhowr bil ay ka dhiman yihiin laakiin adoon ciyaar iyo baadan gaarin ka horaasay iman kartaa laakiin fiisa haday noqoto oo ciyaar kaliya inaad u imaadana kaleeyday wili ciyaaraha lama gaarin iskiyar sukadiyada ciyaar kaliya aragtid hadii aad oo yani aad rabtidna inaad caadi ka hor baad si imaadid oo ciyaaraha intaysan bilaawan aad si joogtidna ayadana ku fududay fiisa saa hore idinku sheegayna mar walba waxaad kala xiriiri kartaa agensiyaasha iyo kuwa fiisooyin soo saaro yarkaan wuxuu dhahay su'aashaan ku soo xiri doona bashka bashiir saaxiib sare keep going barnaamijyo kalena waan ka sugaynaa saaxiib qaali maadaama aad YouTuber noqday oo dadka noqday oo dadka comment-yadooda aad soo qaadata dadka maxaamiishaada like me anyway keep going marka maxka brother adigana aad u mahadsan tahay marka horto aan dadka comment-yashooda ama su'aalayn idin kaga soo jawaaba waa sababta aan idin iri su'aalo soo weydiiyay aad jeclaan lahayd wixii wanaagsan aad soo weydiisan ana jecel in idin kaga soo jawaabo ani de horta yaabo YouTube-ka yaa loo sameesto idinka hadaa wixii lin kaga soo jawaabayn de inaan idin qadariyo idin ixtiraamo oo wixii aad jeceshin idin kaga soo jawaabo marka waa ka su'aalaha intaas yahay wixii su'aal kale oo adiga jeceshahay oo ku saabsan information sax su'aalaha isku soo noqnoqonayo oo ani kama soo jawaabi doono hadii aad su'aalaha hore aad qabtaa laga yaabo video-yaasheen hore u daawo dhowr baati way ma qaana video-ga 107 ma qaana oo dalka qadar uga hadlayo mar walba insha Allah waa sii wada doona xitaa ciyaaraha xilliga ay bilaabayaan xitaa dad kale waxa jiro oo dhalinyaro ciyaartooy oo weydiiyay dad neersin iyo waxyaabo waxbarasho jiro marka wax walba intaas oo su'aal walba adiga aad qabtid video inuu mar walba dheeraado mar walba laga caajiso marka su'aal walba qabtid comment inuu soo weydii sidoo kale han iloobin si share garay hadii aad isticmaasho YouTube WhatsApp kulli ku si share garay si dadka ay xogtaan ugu faa'iidaan adigana bari kamaalin de ajar ay ku yeelaysaa marka sidoo kale waxaan hayna wadadii aan ku gaari lahayn 20 kun oo subscribe marka insha Allah waxa idin leeyahay karaan noqdo marka waxa idin leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh peace and love nabada ka shaqeyn